sano kadib dib loo aasaasay boos isgaarsiineed iyo canshuur lagu soo rogayo shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Somaliland sidaana waxaa sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada ee maamulkaasi Somaliland sida faafinta warkaan oo magaalada Hargeysa nooga soo diray Khalid Ibrahim Cabdi oo halka Somali Channel uga soo warama shir jirayd oo maanta magaalada Hargeysa ku qabtay wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgal ayaa waxa uu ku shaaciyay qorshe ay wasaaradahan ku doonayaan inay dib ugu asaasaan adeegii boosaha oo isugu Somaliland ka shaqeeyeen intii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe Soomaaliya 24 sanadood ka bacdi wasaaradda boosta iyo isgaarsiintu waxay dhaqaajinaysaa boos oo adeegii boosi qaban jirtay oo ummaddu ugu baahnayd wasaaradda boosta iyo isgaarsiintu inta aanay dhammaan sanadka aynu ku jirno ayaa arki doontaan boos shaqaynaysa oo ay leedahay Somaliland waxaana loo qorshaysan in aanu marka hore ka bilowno wasaaradaha dalka gudahooda gaar ahaan caasimadda Hargeysa in aanu u kala adeegno oo kala gaarsiino qoraal waraaqo documents waxa isku gudbinayaan oo maanta gaari nagu kalifta wasaaraddeeda hadaa waraaqa ka dirayo wasaaradda madaxtooyada gaarsiinayo inaan gaaro ka alka iyo inaan aanu dirno waxaanu runtii dadku inta badan intii Soomaaliland jirtay lama arag boosto noocaas laakiin boostii caalamku ka maarmi waayay wadan dhan oo aan sanduuq booseed wasaaradna lahayn waxaan rajaynaynaa inaan ka bixi doono baahida wasaaradda boosta iyo isgaarsiintu 24 sanadood dabadeed inaan maanta la soo galayso qaabkeedii sida uu shaqeyn lahayd waa loo diyaar wasiir Maxamed Abgal waxa uu xusay in shirkadaha isgaarsiinta ku soo rogi doonaan cashuur uu sheegay inay ku waajibtay isagoo aan si rasmi ah u cadeeynin cashuur kordhin lagu sameeyo shirkadaha iyo in dardargelin lagu sameeyo mid ay hore u bixin jireen waxa lagu murmayaa oo hadii jeer laga sheekeeyaa lagama qaado cashuurtii waajibka ku ahayd ee xaqqa dalkan ugu lahaa dadku aad bay taagunaa loonaya waxaanu dadka dhagahooda si mugle u maqashiinaya oo afkayga kaga dhawaaqaya maanta anoo mas'uulkii ugu sareeyay wasaaradana in aan sida ugu dhaqsaha badan leh haddaan sanadkan gudihiisa ay noqon aynana kowda sanad 2014 ka qaadi in aanu wixii waajib aba xaq dalku ugu lahaa shirkadaha aanu ka qaadano wasaaradda ka qaadayso macnaheedu taa waxa weeye waa iyagay dantooda tahay inagay danteena tahay ummadoo dhan badnatay tahay waa si is afgarasho leh oo khilaaf iyo walwal midna aanu ku jirin ayaanu ummadda dhagahooda u maqashiinaynaa anoo kalsooni codkayga maanta ugu dhawaaqaya in aanu ka qaadi doono way yaraan doontaa iyo way badnaan doontaa midna maaha laakiin waan ka qaadaynaa annaga oo xisaabtan dhab ah oo iyagoo ku qalcaan samaystanana iyo qaabkii hawshaan isku afgaranahay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland ayaa ka mid ah wasaaradaha ugu tayada hooseeya marka loo eego adeegyada ay bulshada u qabato mana jirto shaqo rasmi ah oo wasaaradahan hadda fuliyaan walow uu sheegay wasiirkani in isbedelo shaqo ay ka mid tahay tan cashuuraha iyo boosaha uu hadda ka bilaabayo